tani markii uu soo gaaray abwaan Maki Xaaji Banaadir magaalada tan ee London si uu uga qayb qaato bandhigga Somali Week oo sanad waliba lagu qabto magaalada London ayaa dhanka kalena abwaanka waxaa si weyn lagu soo dhaweeyay istuudiyaha TV-ga Universal ee bariga magaalada London. halkaasi ayaa waxaa ku sugnaa qaar ka mid ah maamulka iyo shaqaalaha TV-ga ayaa abwaanka wuxuu u mahadceliyay marka hore maamulka iyo shaqaalaha TV-ga Universal oo soo dhaweyn diiran ugu sameeyay istuudiyaha Universal asagoona halkaasi hadal kooban ka jeediyay. istuudiyaha London aad baan ugu faraxsanahay. abwaanka waa soo dhaweynayna waa jecelnahay, isagana dadkiisa waa jecel yahay. yani qof walba oo Soomaaliyeed uu ka farxiya meel kasta ku kulmaan waa la soo dhaweeyaa. maalmahan London intuu joogay runtii waxaan arkaynay in aad iyo aad loo bogaadiyay shakhsi kasta iyo qof kasta. Soomaalidu waxyaabaha ay ka siman tahay ayaa jira. waxaan oran karaa soo dhaweyntiisa iyo jacaylkiisa aad bay uga siman tahay. marka soo dhawow ragaagii, asxaabtaadii, madaxdii Universal ee London iyo kuwii Muqdisho waa kuwa ku soo dhaweynaya. aad baad u mahadsantahay. ilaahay khayr idin siiyo. meesha iyo joogtiin macna faaruq ma aha, way buuxdaa macnaha ma ahan macnaha aan dulduleelo iyo male macnaha waxa ay muujiseen waxaan isku nahay, waxaan idin ahay iyo waxa ay tihiin ay muujiseen. anigoo fursadan ka faa'iideysanayo waxaan jeclahay Allah subhanahu wa ta'ala in aan ku mahadino dhamaanteena kadibna aan iraahdo waa mahadsan yihiin dhammaan intii gacan ku lahayd in aan wadankan Ingiriiska imaado siba wasaaradda warfaafinta telefishinka Universal agaasimaheena bariga iyo bartamaha Afrika, dhammaan abwaaniinta iyo hobolada iyo qof kasta oo door ka qaatay af ha ahaado adin ha ahaado, dhammaantiin waxaan idin leeyahay walaalayaal waa mahadsantihiin. riya ma aha, run waaye. waxaan joognaa saldhiggii xaruntii TV-ga caalamiga ee Universal intuu ku yaalaa wadanka Britain ka intee London waaye. marka waa East London. riya ma aha, run waaye. macna mugo qof soo jeedana mariyo. intaasi kadib ayaa abwaanka wuxuu guda galay wareysigii TV-ga Universal oo u yimid istuudiyaha halkaasi oo ka qaadiyay wariye Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige, ayadoona maalmaha soo socda daawan doontaan wareysiga oo dhameystiran. abwaan Maki Xaaji Banaadir intuu ku sugan yahay magaalada tan London ayaa waxaa la filayaa inuu la kulmo qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed sidoo kalena oo kala qayb qaato kulamo faneed oo dhawaanahan la filayo inuu ku soo bandhigo magaalada tan London. haba ugu horeeya kulanka ugu horeeya oo la filayo inuu ka dhaco magaalada tan London 12 bisha 11 ee November, halkaasi oo lagu balansan yahay in abwaanka oo ku soo bandhigo kulan faneed oo ka soo qayb galaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Cabdirashiid Maxamed Nuur Cabdirashki, Universal TV, London.